Asalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada. Madaxweyne Donald Trump waxaan ognahay sharcigiisa oo ugu magac daray The Big Beautiful Bill oo ajendihiisa uu ku mideysan yahay weli Congressku inay ka doodayaan meelmarintiisa. Sharcigan madaxweynaha ajendayaasha uu doonayo ayaa gabi ahaanba ku mideysanaya lacagaha uu doonayo in loo meelmariyo. Haddaba maanta kulan uu uga hadlayay waxyaabaha ku jira sharcigaasi The Big Beautiful Bill waa kii sharcigii Elon Musk asaga iskula dhaceen markii hore bishii Abriil waxaa soo ansixiyay aqalka wakiilada sanadka ayuu u gudbay sanadkana waxbay ka bedeleen toddobaadkii hore ayay meel mariyeen haddana waxaa dib loogu celiyay aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka ama House of Representative-ka marka Trump sida uu doonayo sharcigan wuxuu rabaa in la meel mariyo inta aan la gaarin 4 bisha July oo ah maalinta xorriyadda Mareykanka loo dabaaldegayo kadibna uu saxiixo oo maalintaasi ku aadiyay xitaa saxiixeeda marka kulankan maanta waxa uu ahaa kulan uga hadlayay waxyaabaha sharcigaasi ku jira waxa uu sheegay marka in haddii sharcigaasi loo meel mariyo uu bartilmaameedkiisu yahay in sanad kasta 1 milyan oo qof oo wadanka sharci darro ku soo galay in laga masaafuriyo sharcigaasi waxaa sidoo kale ku jira lacagaha dadku ay wadamada dibadda u diraan laakiin Soomaalida oo kale lacaga fara badan ay dalkii hooyo ee Soomaaliya ay u diraan lacagahaasi in canshuur laga qaado ilaa 5% ayaa la soo jeedinaya qof waliba lacagta uu dirayo in laga qaadayo waxa uu sidoo kale sheegay in sharcigaasi ay ku jirto in darbigii laga dhisayay xadka Mareykanka iyo Mexico qaybihii ka harsanaa oo Trump afartiisii hore ee wadanka hogaaminaya afartiisii sano isagoo dhisaya ay ka dhamaato waqtigu ka dhamaado marka waxa uu leeyahay qaybihii ka harsanaa xitaa waxaan doonaynaa darbigaasi inaan dhamaystirno laakiin arrinta uu ka dhawaajiyay maanta waxay tahay in sanad kasta uu bartilmaameedsanayo 1 milyan oo qof in wadanka laga masaafuriyo oo dadka wadanka sharci darrada ku soo galay ah waxa uu leeyahay marka hore dadka dambiilayaasha ah ayaan diiradda saareynaa kadibna waxaan u soo jeesan doonaa dadka kale bal codkiisa wax yar ila daawada isagoo kulankii maanta ka hadlayay arrimahaasina sidoo kale madaxweyne Trump uu ka hadlayay. We're going to fully fund the final sections of border wall, impose a new remittance tax on money sent back to foreign countries, and dramatically increase deportations to a bare minimum of 1 million illegal aliens per year. And what we're doing is we're really going after the criminal aliens, of which we have plenty to work with. People say, well, that's a lot, isn't it? Well, remember, these countries are very smart. They're headed up by people I know. In almost all cases, they're very smart people. And they have the people of great common sense. They're not sending their good people out. They're sending the bad people out. And they put them into caravans. I think I came up with that name, but somebody did. It's a great name, a caravan. Thousands and sometimes as many as 30,000 people walking right into our country. Again, last month we had none. Think of that. Aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta waxyaabaha kale oo soo kordha haddii aan lidmo waa idila soo socodsiin doonaa. Stay tuned.